xafladda furitaanka bangiga Shabeelle Banki ayaa laga daafuray magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida. Qorshaha yagleelida bangi ay Soomaali leedahay oo lagu hawlana dhawaanahan ayaa si rasmi ah loo yagleelay. Hadda waxa uu ka mid noqon doonaa bangiyada ka jira gudaha waddanka Itoobiya. Waxa yeelan doona dadka Soomaaliyeed iyo cid kasta oo gadata saamiga. Bangigan waxaa ka reeban ribada waxaana udub dhexaad u ah shareecada Islaamka iyo daacadnimo uu ku mutaystay bangigani hormuudka bangiyada. Waxaa ka soo qayb galay inta badan golaha xukuumadda deegaanka Soomaalida oo ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Soomaalida Ibrahim Cismaan Faarax, Dr. Xuseen Xaashi Qaasim wasiirka xafiiska madaxtooyada, Maxamed Shale Isxaaq madaxa xisbiga barwaaqo ee dowlad deegaanka Soomaalida, xubno mas'uuliyiin oo ka socday dowladda federaaliga Itoobiya oo uu horkacayo Sheekh Ibrahim Yuufa gudoomiyaha golaha sare ee arrimaha islaamka dalka, wasiiro iyo ambaasadorada Itoobiya u fadhiya dalalka Geeska Afrika iyo caalamkaba. Odayaasha dhaqanka deegaanka Soomaalida, ganacsato iyo marti sharaf kale ayaa sidoo kale goobjoog ka ah oo ka soo qayb galay munaasabadda xarika jarka bangiga Shabeelle Banki. Ugu horeyn Khadar Axmed, madaxweynaha bangiga Shabeelle Banki ayaa ka waramay heerarka kala duwan ee uu soo maray bangigu waxa uuna cadeeyay qorshaha shanta sano ee soo socota ee bangiga. Guud ahaan 51 laamood ayaa bangiga loo diyaariyay oo 2 ka mid ah noqonayaan bank branches. 22 ka mid ah ay ku shaqeyn doonaan adeegii microfinance-ga si fidin doonaan. inkastoo liisanka la qaatay waqtigaas haddana bangigu maadaama sii shaqeynaya oo sii fidinaya adeegii microfinance-ga waxaa macaamiil oo ka faa'iideystay 200 gaari oo lagu maalgeliyay lacag ka badan 4 bilyan. waxaa sidoo kale macaamiil oo wakiilada adeegyada bixiya ilaa 20 wakiil ayaa la diyaariyay oo maalintii dhaqdhaqaajiya toddobaadkii dhaqdhaqaajiya 2.5 bilyan oo bir. sidoo kale garaad kulmiye garaad maxamed oo ku hadlayay afka odayaasha dhaqanka deegaanka Soomaalida ayaa qeexay muhiimadda uu shacabka deegaanka Soomaalida iyo kuwa Soomaaliyeedba uu u leeyahay bangigan. mar haddii maanta laynoo furay bangi aan inagu leenahay, bangi ay ummadda islaamka leedahay Itoobiya, waxaan leenahay maanta bangigaasi waajib ayna saaran. wuxuu ku shaqeynayaa shareecadeena islaamka ah. waa ogtiin ribadu diinta islaamka meesha ka joogto, waa nin Ilaahay dagaal ku qaaday. mar haddii Ilaahay naga koriyay oo maanta helay, waxaan u baahanahay bangigan iyo bangiyada kale ee islaamiga ah inaynu kobcino. Xasan Maxamed Xuseen Daadi, gudoomiyaha guddiga boorka Shabeelle Banki ayaa isna halkaasi ka hadlay. waxa uu wax ka taabtay marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray bangiga. bangiga waxa uu shaqeeyaa shaqaale ilaa 1,000 qof gaadhaya. waxa hadda la tababaray oo tababarkii bangi la siiyay 884 qof oo shaqaalaha bangiga ayaa tababar la siiyay. 884 shaqaalaha bangiga tababar dhammaystiran la siiyay oo ready waa inay adeegii bangi inay bixiyaan. inta ka soo hadhay waa waardiyada iyo nadiifisooyinkii iyo dadka shaqaale hoosaadka ah. bangiga kabitaalkiisu wuxuu gaadhayaa 565 milyan ayuu gaadhayaa. asadkiisuna waxa uu ka badan yahay 3 bilyan. 3 bilyan buu kor u dhaafayaa asadkiisu. waa Shabeelle Banki. Shabeelle Banki waxaan u diyaarinay Central Vault aan ugu talagalnay ama qasnad guud oo dhisnay oo meel nadiif ah oo amni badan aan ka dhisnay oo ugu talagalnay deegaanka bangiyada jiro oo dhan inay hab u noqoto lacagtooda oo ugu hayno waxay kiraan ka qaadno. dawladuna waxay diyaarisay ciidan aad u adag oo hubaysan in la dul dhigo oo lagu ilaaliyo qasnada iyada. ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Soomaalida Ibrahim Cismaan ayaa soo xiray munaasabadda. waxa uu hoosta ka xariiqay inay xukuumadda ka go'an tahay horumarinta iyo hirgelinta waxay Soomaali leedahay. marka bulshada deegaankeena ku dhaqan iyo waddankaba si guud meel kasta ay maaragtay dad danaynaya ay jiraan, waxaan ku soo dhaweynaynaa
inay gataan sheerka bankiga ay iyagu iska leeyihiin inuu noqdo sidoo kale mustaqbalka hadda waxaan anagu dowlad ahaan 70% sheerka dowladda leh laakiin mustaqbalka sheerka dowladda waxaanu rabnaa inuu hoos u dhigo oo ka shacabku maaragtay kor u soo kaco markaas darteed waxaa loo baahan yahay saamigii loogu talagalay inay bulshadu xoolo dhaqatada beeralayda qof kasta oo deegaankeena ku dhaqan ama danaynaya inuu gadan karo